السلام عليكم سو دhowaada macaamiisha sharafta leh meel kasta aad joogtaan maanta waxaan joogaa jaamacadda Istanbul Atlas University oo kamid ah jaamacadaha barefadka ee ku yaala magaalada Istanbul ilaa haddeertan waxaan soo booqanay jaamacado kala duwan oo Istanbul ku yaalo laakiin maanta waxaan fursad iyo jaanis u helnay inaan la kulanno mid kamid ah maamulka Soomaaliyeed ee madax ka ah mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Istanbul runtii jaamacadaha aan la shaqeyno way fara badan tahay laakiin jaamacadda Atlas waxay uga duwan tahay jaamacadaha kale oo ardayda Soomaaliyeed ay ku jecel yihiin oo waalidka ay ku jecel yihiin waxa waaye in maamulka jaamacadda uu yahay Soomaali oo ninka international office ka haysto waa gudoomiye Ibrahim oo ah yar hore uga soo shaqeeyay jaamacado kala duwan oo Istanbul ku yaalo ahna jaamacaddii saddexaad oo aakhirkii uu ka noqday inuu noqdo maamulka international office ka jaamacadda 8 sano ku soo jiray qaybtan waxbarashada international office ku soo jiray intana ku dhameeyay jaamacaddii oo khibrad fara badan u leh waxbarashada iyo nolosha dalka Turkiga marka maanta jaanis badan ayaan runtii haysanaa oo ah inaan wax badan ka ogaano jaamacadda Atlas iyo maamulkeeda gudoomiye Ibrahim horta ma kor soo dhawaad fursad weyn inoo tahay jaanis weyn inoo tahay runtii ardada aan rabno inaan keenno na waxaan rabnaa in adoo kale ay bari madax ka noqdaan meel waana ku faraxsanahay waalidka daawanaayo iyo ardayda daawanayna waxay u tahay kulay tusaale fiican ayaad u tahay adiga waayo adoo xilli yar ka hor dalka yimid oo 8 sano gudaheed aad ku soo gaartay position aan maanta jaamacad madax ka noqoto marka hore adiga waxay xogtaada aan ka qaadano kadibna jaamacadda gudbeyna ugu horeyn gudoomiye Cabdikariim Tahliil aad iyo aad u mahadsan tahay booqashada aadna soo booqateen jaamacadda Istanbul Atlas farxad bay ii tahay sharaf bay ii tahay qof walaalkayga ah shirkad oo caan ah oo adduunyada dhan yani ka yaabsatay oo wadanka ku leh aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan adiga kula kulmo oo wareysigan qiimaha badan ku yeesho marka aniga waxaan ka mid ahay ardaydii oo wadanka wax ku baratay oo wadankan ka qalijibisay jaamacadaha ka mid ah magaalada tan Istanbul markii aan qalinjibiyay kadib shaqadan bilaabay hadda waxaa ka soo wareegtay ugu yaraan 7 sano aan shaqadan hawshan ku jira haddii aan ku bilaawno su'aasheeda koowaad gudoomiye Ibrahim jaamacaddan aad madaxda ka tahay Istanbul Atlas University waa jaamacad khaas marka xog maxaad naga sii kartaa jaamacadda oo ardadeena rabo inay jaamacaddan soo xareystaan maxaad xog ka sii kartaa oo horlaca jaamacadda Istanbul Atlas waa sax sida aad sheegtay jaamacaddan Istanbul Atlas waa jaamacad ka mid ah jaamacadaha khaaska ah oo bartamaha Istanbul ku yaala jaamacadda waxaa la aasaasay 2018 iyadoo oo hoos tagta wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta wasaaradda hidaha iyo dhaqanka ee Turki si ay u keento fikrad mise maskax ka duwan jaamacadaha kale oo hal abuur leh jaamacaddu waxay muhiimadda siisaa waxbarashada oo tacliin sare leh marka jaamacaddu sanad dugsiyeedkii ugu horeeyay waxay bilowday 2020 ay bilowday ardayda oo sanadkan qorayso waxaa ka mid ah arday Soomaaliyeed oo tiro badan arday badan oo wadamada kale Afrika iyo wadamada Carabta ka kala yimaadeen marka jaamacadda Istanbul Atlas waxa weeye jaamacadaha oo ugu firfircoon ugu da'da yar oo hadda soo baxay waaye haddii aanan qalad u xasuusan jaamacadda Atlas aasaasayasheeda waa dhakhaatiira oo inta isbitaallo waaweyn kula soo maaha oo ilaan waxa sida aan ogahay waxa jaamacadda ka dambeeyo backgroundkeeda ah waa isbitaallo waaweyn iyo macnaha hay'adaha ka dambeeyo soo maaha jaamacadda waxay leedahay isbitaal oo in ka badan 20 sano adeeg bixinay oo kalsooni badan bukaanada kasbaday wadanka aad looga yaqaan oo la dhahay Medicine Hospital marka qoladii jaamacad isbitaalka iska lahayd waxay dhaheen maadaama aan isbitaal leenahay oo dhakhaatiir badan ka shaqeeyaan jaamacadda marka backgroundkeeda waxa way waa caafimaad sida oo aan horey kugu sheegay yani waxay hoos tagtaa wasaaradda caafimaadka ee Turkiga marka meeshaas aasaaska ka imaaday waxaa ka shaqeysaa dhakhaatiir aad iyo aad u badan
oo ka badan ilaa iyo 25,000 oo ka badanaa ka shaqeyso oo caafimaad ah isla dhakhtarada oo isbitaalka ka shaqeeyaan jaamacadan wax ka dhiga professoradii wax ka dhigo marka ardayda waxay fursad u helayaan maadaama jaamacad ay leedahay isbitaalkeeda oo medicine iyo dentistry laba isbitaal leedahay ardayda fursadda oo ugu muhiimsan ay helayaan waxa waaye sanadka ugu horeeyo ay waxay bilaabayaan baraatikadii iyo waxbarashadii oo fikradii wada socday hal mar ay isku wadayaan ilaa laga bilaabo sanadka ugu horeeyo ilaa qalinjibinta ardayda kasta wuxuu fursad u helayaa bukaan oo asiga bilowgiis ilaa dhammaadkiis asiga kontroole oo asiga la socday oo soo saaray waana sharci oo kamid jaamacadda leedahay ardayda loogu shaqeeyo waa waajib ah xilliga oo fasaxadan waxay fursad u heli karaan inay isbitaalka ka shaqeeyaan aan ka dhaxgale ma la dhigi karaa sababta hadda dentistryga iyo medicineka ay xilli hore u dhammaadeen waa backgroundka sadda aad sheegtay iyo facilitygaas aad sheegtay taasaa ka dambaysa ma la dhigi karaa maadaama jaamacadda ay leedahay shay baaryo oo aad iyo aad loo tayeeyey yani aan waddanka horey looga arag ay leedahay backgroundkeeda aad u fiican yahay dhakhtarada ka shaqeeya ay yihiin dhakhtaro oo dhammaantooda double major haysta ay yihiin marka yani ajaanibte marka ayagoo waxaas dhan eegayaan yani admissionka markaan furnay oo 2 isbuuc ka soo wareegatay dhan waa buuxsamay oo dadku way og yihiin almost backgroundka jaamacadda backgroundka og yihiin isla markiiba way buuxsantay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socdo xilli hore inaan ka faa'iideysano haddaan u gudbo marka su'aasha kale gudoomiye Ibraahim maxaa kamid ah kulliyadaha jaamacaddu ay hayso siiba kuwa Ingiriiska ku hayso waa taqaanaa dadkeenu inta badan waxay danayaan luqadda Ingiriiska wax ku bartaan marka wax ma nooga taaban kartaa kulliyadaha aad Ingiriiska ku haysaan jaamacaddu waxay ku baxdaa sida caadiga ah luqadda Ingiriiska iyo af Turkiga marka ardayga haddii uu doorto program uu ku baxayo luqadda oo af Turki boqolkiiba boqol ku dhigana haddii af Ingiriis doortana boqolkiiba boqol سلمدا في إنجليزي كلينا. مركز كلية جامعة waxaa kamid ah Faculty of Health Sciences kamid ah Faculty of Engineering and Natural Sciences kamid ah waxaa kamid ah Faculty of Health Sciences and Social kamid ah marka waxay leedahay programo badan oo kuwa baxay boqolkiiba boqol of English ah sidoo engineering camal waxaa kamid ah kulliyada industrial engineering kamid ah kulliyada software engineering kamid ah kulliyada molecular biology engineering kamid ah ardada inta badan waxay is weydiiyaan marka laga soo tago jaamacadda meesha ay ku taalo iyo kulliyadaha ay hayso waa qiimaha qiimuhuna waa waxa ardayga ama jaamacadda inuu gala sabab u noqdo ama inuu jaamacadda ka taga sabab u noqdo marka maxaad noogu sheegi kartaa qiimaha iyo qiimo dhimisyada iyo waxyaabaha iyo scholarship-yada minxooyinka iyo waxa ardada u samaysan hadday jiraan wax nooga taaban kartaa jaamacaddu waxay bixisaa qiimo dhimis mise scholarship in ka badan boqolkiiba 50 dhammaan ardayda ajaanibta caalamka gaar ahaan ardaydeena Soomaaliyeed weelishaana gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan siinaa qiimo dhimis ka duwan ardayda kale ee caalamka kamid ah yani ardaydu waxay u heli karaan fursado kala duwan meeshana anoo walaalkooda anaa u joogo insha Allah ardayda oo soo marta khaasatan shirkadeena Askuni oo adiga madax ka tahay insha Allah marka waxaan diyaar u nahay wax walba aan ku caawin karno ardaydeena gaar ahaan ardaydeena Soomaaliyeed diyaar baan u nahay inaad ku cabsan waa maasanta gudoomiye maxaa kamid ah requirement-ga ardayga looga baahan yahay jaamacadda ku soo xareysanayo ardayga jaamacaddu markuu soo xareysanayo waxaa looga baahan yahay sida shahaadada dugsiga sare baasaboorka shahaadada oo dugsiga Soomaali shahaadada iyo transcript yani hal meel ku wada yaalaan marka shahaadada dugsiga sare iyo baasaboor kaliya u baahanahay wax kale ma jiro marka maxaa kaloo marka macdad waxa ii sheegtay markaan barnaamijka bilaabayna waxaad iigu bilowday in ardadu ay helayaan ugu yaraan ama hal semester ama hal sano oo shaqo ah bilaha fasaxana ay shaqay karaan kaliya ma waxay ku kooban tahay ardada kulliyadaha caafimaadka dhiganayo iyo dentistryga mise ardada kale ee engineering iyo social science ka dhiganayna ay soo kala fursad noocaas u helayaan jaamacaddan markii la aasaasay fikradooda
sida hore kugu sheegay waxay ahayd see jaamacadaha kale ugu duwanaan karna yani jaamacadaha dhan markay qiimeeyeen waxay dhaheen maxaa samayn karna oo waxbarashada waddanka ku soo kordhin karna marka jaamacad waa jaamacad diyaarsan oo dhanka waxbarashada aad muhiimad u siiso marka ardayga haddii engineering dhiganayo waxaa jiro shirkadooyin oo heshiis lagula jiro oo fieldigi oo mise barnaamijka ardayga markaas baranayo oo loo diraayo oo meeshaas practice ka soo samaynayo wixii bartay intii oo waxbarashada u socoto marka ardayga asoo meeshaas practice ka sii wado aaba laga yaabaa meeshii uu markaas ka shaqeeyo in shaqo looga helo oo meeshaas ka sii wado marka taas waxay u dhigantaa jawaabtu in ardayga caafimaadka iyo dentistryga maahane kuwa kalena ay helayaan xilli ay ku shaqaystaan oo ayagana shaqooyin la geynayo intay jaamacadda dhiganayo waa taasi waa mid fiican waayo waxay kor u qaadee ardayga inuu khibrad helo intuusan jaamacadda ka qalin jebin fursadahaas marka laga soo tago ma jiraan fursado sida Erasmus oo kale exchange oo kale oo aad ardayda u soo bandhigtaa jaamacaddu waxay heshiis kula jirtaa programmada oo isbedelka ardayda Europe ay kula jirta heshiis kula jirta yani sanadkan waxaan heshiis la galnay ilaa iyo 32 jaamacadood oo dhammaantood wada Europe marka ardayga sanadka ugu horeeyo haddii oo GB-giis 2.5 ka bato wuxuu galayaa imtixaan luuqad oo Europe ku aadi karo haddii uu guuleysto marka waxaa loo dirayaa wadankii asi markaas uu rabo inuu aado loo dirayaa si oo experience iyo yani khibrad cusub u soo helo ka waran deegaanka jaamacaddu horta meel fiican ay ku taallaa runtii magaalada meel laga soo aadi karo oo maanta xagga transportationka ardaysan barbalim kala kulmayn ay horta jaamacaddu ku taallaa laakiin ma jiraan dormitoriyaal oo deegaan gabdho iyo wiilal ah oo ay ardaydu degi karaan ma jiraan dabcan jaamacaddu waxay heshiis kula jirtaa ilaa iyo 7 shirkadood oo ardaydeena u diyaariyaan meel ay degaan meel ay ku noolaadaan intay waxbarashadooda u socoto marka ardayga tusaale markii jaamacadda imaado waa ku xirnaa asaad toos u la hareerayo mise idinka shirkadiina caawinayso marka yani waa hayna meel ardayda degaan intay waxbarashadooda u socoto khaasatan ardayda inta badan waxay door badan sanadka ugu horeeyo in meel oo meesha ardayda si degaan inuu ku noolaado si markay magaalada u fahmaan magaalada markuu fahmaan marka magaaladiisu iska galaa ugu dambeyn gudoomiye Ibrahim horta waa maasada xog muhiim ah siisay waxaan aaminsanahay in ardayda rabto in jaamacadda Atlas ay wax ku bartaan kuwa wali maadooyinka aysan ka buuxsamin wali maadooyinka ay noo furan yihiin in horta ay soo xariisan doonaan oo uga faa'iideyn doono oo waliba waxyaaba ugu muhiimsan marka ardayga jaamacad dhiganayo waxa waa inuu helo maamul taageerayo maanta waxay haystaan maamul Soomaaliyeed oo haddii qiimaynimo u baahdaan haddii macallin ay isku dhacaan haddii maanta barbaran jaamacadda uga dhaco haddii wax kale ka soo baxan ka caawi karo luuqadoodiina fahmayo ayay haystaan taasna runtii horta waa fursad aad iyo aad u weyn marka laga soo tago waxyaabaha kale iyo xogta kale oo aadna siisay horta waxaan aaminsanahay in ay naga gadantay oo aan arday badan ay imaan doonto jaamacadda haddiiba aan fursad u helno sanadkan inta maadooyinka hartay marka ugu dambeyn maxaad ardayda Soomaaliyeed ay ku daawanayo aad message ahaan ugu sheegi lahayd dhammaan ardayda Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku soo dhawaada jaamacaddiina Atlas University oo aniga ka maamul ahaan ugu shaqeeyo waxaan diyaar u ahay inaan idin furo wadooyinka oo wado kasta oo aan ku caawin karo ardaydeena Soomaaliyeed qiimo dhimis ballaaran aan idin sameeyo wixii aan ka geysan karo karaankayga aad idin sameeyo insha Allah waxaan rajaynayaa markii oo jaamacadda imaatiin oo ishiina aad ku aragtiin inaad jeclaan doontiin oo aad ka heli doontiin oo dadkii walaalaheen oo waxbarashada jeclaa waxbarashada rabay inaad la soo jeclaan doontiin aan rajaynayaa marka insha Allah shirkadda Askuni aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan idin sheegayaa inaad soo martiin shirkadda Askunicom oo ah shirkad oo wadanka aad looga yaqaano oo wadanka dhaxdiis yani sharaf ku yeelatay oo magac ku leh marka insha Allah intaas maanta waxaa nooga eg waraysigii aan la yeelanay gudoomiye Ibrahim oo ah maamulaha xafiiska international office-ka ee jaamacadda Atlas University oo ah jaamacad khaas ah oo ku taalla magaalada Istanbul intaan jaamacad kale ku kulmayno waxaan leenahay isma dhaafno waa maasantiin